wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay ciidamo kumaandoosa oo ka tirsanaa ciidamada sida gaarka u tababaran ee ilaalada madaxtooyada oo damacsanaa inay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed khaarajiyaan in xabsi lagu xukumay. wasaaradda gaashaandhigga oo shir jaraa'id qabatay ayaa waxay sheegtay 66 askari oo kamid ah 200 oo askari oo iyagu hubkoodii sita fasax la'aan madaxtooyada ku galay lagu xukumay 5 ilaa 14 sano oo xariga. madaxa maxkamadda ciidamada gaashaanle meeshesha areeda oo ay weheliyaan xiriirlayaal iyo qareeno u doodaya ciidamada oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu sheegay maxkamaddu inay xukunkaasi ku gaadhay fadhi maxkamadeed oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 500 oo qof. sidoo kale ciidamada iyagoo hubkooda sita fasax la'aan madaxtooyada galay waxaa laga qaaday tallaabooyin sharci ah oo waafaqsan nidaamka anshaxa ee ciidamada u yaala. xiriirlayaha maxkamadda saddex xidigle Hayle Maryam ayaa waxa uu sheegay ciidamadaas in laga qaaday tallaabo sharci ah oo cashar u noqon karta ciidamada dalka ee falalka noocaas oo kala ku dhaqaaqa. qareenka ciidamada u doodayay Daselen Daka waxa uu isna sheegay geedi socodka dacwadda ciidamadaasi ilaa iyo xukunka in loo maray wadadii saxda ahayd oo waafaqsan dastuurka dalka iyo shuruucda maxkamadda ciidamada ee dalka u yaala. warbaahinta qaar ayaa sheegtay in ciidamada si aan sharci ahayn xukun loogu qaaday ayna tahay tallaabadaasi mid khaldan. waxay ku doodayeen ayuu yidhi inay sumcadda ciidamada dalka wax u dhimayaan arrimaha noocaasi ahna loo baahan yahay inay idaacadahaasi ka waantoobaan. ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa sheegay in qaar ka mid ah askartii toddobaadkii hore soo hordhoobtay xafiiskiisa ay doonayeen inay isaga khaarajiyaan. xilligaasi oo xaaladii bedelay isagoo amar ku siiyay inay xabadda dhulka dhigaan oo ay jimicsi sameeyaan asnahu la sameeyay. Abiy Ahmed iyo askarta ayaa la arkayay iyagoo wada qoslaya balse waxa uu baarlamaanka u sheegay qalbi ahaan inuusan ku faraxsanayn. tan iyo markii la doortay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu sameeyay isbeddello dhowr ah oo waaweyn. waxa uu sheegay in ciidamada qaar ay doonayeen inay marinka ka weeciyaan, in qaar ciidamada ka mid ay socod ku tagaan madaxtooyada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ma ahayn oo kaliya sharci darro balse waa arrin khatar ah sababtoo ah ujeedadu waxay ahayd in isbeddelka socda uu dhicisoobo ayuu yiri Abiy Ahmed oo kulan ay baarlamaanku su'aalo ku weydiinayeen ka jawaabayay. isla waqtigaasi markii xaaladda la xakameeyay kadib waxaan maqlay ciidamada qaar oo leh uu cararay intii aan dilin koor. dad badan ayaa la yaabay sida uu ra'iisul wasaaruhu arrintan uga hadlay toddobaadkan oo ka duwanayd sidii uu toddobaadkii hore uga jawaabay dhacdadaasi. waxaa la arkayay isagoo qoslaya oo dhoola cadaynaya balse waxa uu baarlamaanka u sheegay inuu caraysnaa oo uu cabsanayay. waxa uu sheegay inuu ka baqay in dagaal qarxo iyagoo buu yidhi dad dhalinyaro ah ay soo aadeen Addis Ababa si ay dagaal u kiciyaan. dhanka kale waxaa jira dareen ah in dadka qaar ayna ku faraxsanayn isbeddelkiisa. ra'iisul wasaaraha ayaa horey u sheegay inay jiraan xoogag aan ogolayn isbeddelka uu samaynayo. ereygaasi ayuu adeegsaday mar uu ka hadlayay isku day kale oo la sheegay in la doonayo in lagu dilo iyo sidoo kale mar uu ka hadlayay rabshadaha qoomiyadaha salka ku haya ee ka dilaacay qaybo ka mid ah dalka Itoobiya. 10kii bishii Oktoobar dhowr boqol oo ciidamo gadoodsan ah oo qaar ka mid ah ay hubaysnaayeen ayaa tegay xafiiska ra'iisul wasaaraha sida la sheegayna dalbanayay in mushaaraadka loo kordhiyo. xaaladaasi ayaa dhalisay dareen taas oo keentay in la xidho wadooyinka agagaarkaas ku yaal khadka internetkana la jaro muddo saacada. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo khamiistii baarlamaanka dalka Itoobiya la hadlayay ayaa sheegay in haddii aanu amarka jimicsiga bixin lahayn ay xaaladdu idil cirka isku shareeri lahayd. dadka qaar ayaa u arkayay jimicsiga aanu samaynaynay wax iska caadi ah balse waxaan u adeegsanayay inaan xaaladda ku dajiyo. tan iyo markuu xilka qabtay bishii Abriil Abiy Ahmed waxa uu sameeyay isbeddello waaweyn oo ay ka mid yihiin inuu xabsiga ka sii daayay maxaabiis siyaasadda u xidhnaa, inuu xayiraadda ka qaaday kooxihii mucaaradka ahaa
iyo inuu heshiis nabadeed la saxiixday Eritrea oo muddo dheer ay cadow ahaayeen. bishii hore dacwadoogayaasha Itoobiya ayaa 5 ruux oo la tuhunsan yahay ku eedeeyay argagixisanimo ku aadan isku day la doonayay in lagu kharajiyo Abiy Ahmed oo loo adeegsaday bam gacmeed lagu qaaday isu soo bax dadweyne oo dhacay bishii Juun ee sanadkan. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa mar kale u diray warqad codsi ah oo looga hadlayo soo qabashadii Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur waxa ay u direen dawladda Itoobiya. xildhibaanadan ayaa warqad la socodsiiyay safiirada Mareykanka, Ingiriiska, Midowga Afrika iyo wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Itoobiya. waxa ayna dalbadeen in Itoobiya ay cadeyso doorkii ay ciidankeedu ku lahaayeen soo qabashadii Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur 13 bishan ka dhacday magaalada Baydhabo. xubnahan xildhibaanada ah ayaa horay sidan oo kale warqad ugu qoray Midowga Afrika iyo qaramada midoobay. warqadaas oo la ogeysiiyay wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya waxayna labada warqad ay walaac ka muujiyeen xaaladda Koonfur Galbeed iyo guud ahaan midda Soomaaliya. waxa ay sheegeen in soo qabashadii Abu Mansuur oo ay sharci darro ku tilmaameen ay ku dhinteen dad badan kuwa kalena ay ku dhaawacmeen welina ay jiraan dhibaatooyin kale oo laga dhaxlay sida ay hadalka u dhigeen. qoraalkooda ayaa sidoo oo kale waxa lagu cadeeyay in madaxa howlgalka AMISOM uu beeniyay eedeymo ay horay ugu jeediyeen xildhibaanadan taasina aanay ku filnayn oo ay doonayaan jawaab sax ah oo ku aadan arrintii ka dhacday magaalada Baydhabo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo in ciidanka Itoobiya ee Baydhabo jooga ay ka tirsan yihiin AMISOM iyo in kale. dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in xabsiga godka Jilcow loo bedelay xarun lagu tababarayo ciidanka dawladda. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta soo gabagabeeyay jiritaanka xabsigii weynaa oo ay lahayd hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA kaas oo loo yaqaano godka Jilcow. godka Jilcow waxa uu ahaa xabsiga ugu weyn ee hay'adda NISA waxaana loogu magac daray ninkii ugu darajada sarreeyay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee godka Jilcow. wasiirada amniga iyo cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlay xiritaanka xaruntaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay timid xiritaanka xaruntu kadib markii shacabka Soomaaliyeed ay dalbadeen in la xiro sidoo kalena beesha caalamka iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka dayriyay xarunta. hadda waxa loo bedelay xarunta akadeemiyadda ee Jilcow waxaana lagu tababari doonaa ciidanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa nabad sugidda Soomaaliya. xubnaha wasiirada ah ayaa waxa ay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya maxaabiista la geyn doono xabsiyada booliiska iyo sidoo kale xabsiga dhexe ee Xamar. xasan cali khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar kula kulmay gudoomiyaha guddiga amniga iyo nabadgelyada ama nabadda Midowga Afrika Ambassador Ismaaciil Shargaay. ra'iisul wasaare Khayre iyo Ambassador Ismaaciil ayaa ka wada hadlay dardargelinta howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya, dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada iyo diyaar garowga loogu jiro qorshaha mas'uuliyadda amniga ay kula wareegayso dawladda Soomaaliya. kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay sii wadida taageerada dhanka amniga ah ee Midowga Afrika ay siiyaan Soomaaliya. iyadoo uu jiro khilaaf in muddo soo jiitamayay u dhaxeeyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Amahagar Usdabageed iyo ku-xigeenkiisa dhanka amniga Cabdiraxiin Taakoy ayna u kala dabqaadayeen xildhibaano Hirshabeelle ayaa waxa uu Cabdiraxiin uu kula kulmay xarunta degmada Beledweyne uu yaqiijay in weli uu jiro khilaaf oo aan lagu guuleysan in la xalliyo. ma ku taageerina waxa uu ku taagan yahay insha Allah khilaafkaasna weli xildhibaanadii ayaa ku jiro waana ka warsugaynaa. ballamo badan oo xildhibaanada gudoomiyaha u dhigay ayaa jiray, ballamadina wuu ka baxay. marka ilaa ay haddana xildhibaanadan ka warsugayna hadduu ilaah yiraahdo khilaafkaana waa jiraa walaal. waxaa jiray isbuucyada la soo dhaafay khilaafkaas uu taagnaay ilaa ay haddana waa taagan yahay. khilaafkii waxa weeyaan waxaan isku qabannay aniga iyo gudoomiyahayga xagga dawladnimada iyo haykalka iyo nidaamka iyo shaqada iyo sida loo wadaagayo. marka arrimahaas markaan isku qabaynano wax ka soo baxay oo wanaag ahna ma jirin. ilaa ay haddana meesheedii ayay taagan tahay. Cabdiraxiin Taakoy gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan arrimaha amniga ayaa carabkiisa ka dhowray
in khilaafku uu salka ku hayo arrimo dhaqaale balse waxaa jira warar sheegaya in khilaafka uu ka soo bilowday arrimaha dhaqaalaha ka soo carooda canshuurta laga qaaday gaadiidka. waxaa khilaafka kulley arrimahaasi bes lama oran kara laakiin waa mid guud waa mid danta guud ee nidaamka dawladnimada ku salaysan waaya iyo sida wax loo maamulaya iyo sida wada shaqaynta ay u taagnaan karto waxaa weeyaan wada jir iyo wada shaqayn iyo in awooddii la qaybsado qof walbaba dowlad gobolka Hirshabeelle maamulka xafiis bay u soo igmatay xafiiskiisa inuu ka shaqeeyo madax bannaan u shaqeeyana waa wax dastuuri ah wax aan laga tilaabsan karin waaya dee annaga ka tilaabsan mayno laakiin cidda ka tilaabsato un baan caddaynayna inay ka tilaabsato. Cabdirciin Taakoy gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan arrimaha amniga ayaan weydiiyey su'aal ahayd wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle inay la socoto khilaafka u dhaceeya isaga iyo gudoomiyaha gobolka Hiiraan. aad iyo aad raboodkaas waa qabtaa wasaaradda arrimaha gudaha aniga waxaan la xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee soo magacaabay kulley raboodka u gudbiyey insha Allah ta'ala jawaabna waa sugaynaa haduu Ilaahay yiraahdo. Cabdirciin Taakoy sidoo kale wuxuu carab ku dhuftay in mas'uuliyiin ugu horeeyo gudoomiyaha degmada duqa degmada iyo gudoomiyaha gobolka baa looga yeeray magaalada Jawhar xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. may walaalow maamulka oo dhan looma yeerin xubna maamulka kamida ayaa loo yeeray uu kamid yahay gudoomiyaha degmada iyo duqa magaalada gudoomiyaha gobolkana kulley casuumaadaas waa helay. Ismaan Aadan Carays warbaahinta kulmiye Beledweyne.